waxay u dagaalamayaan Champions League su'aalistiisa waa kuwe waa Tottenham iyo Arsenal walla Arsenal Newcastle baa ku wareersan tahay in adeeray champion waxba ka keenay Messi ma meesha iska joogtay ma iska European League Manchester United waa aragtaa European League oo dagaalameysa isku soo duub Tottenham iyo Arsenal waxay rabaan inay Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh daawadayaal meel kastoo adduunka ka joogtaan ku soo dhawaada Hanfada Sports haddii maalin ku tahay maalin wanaagsan haddii habeen ku tahay habeen wanaagsan okaad intaan ugu galin barnaamijkan fadlan waxa si naxariis leh kaaga codsanaya ina page-kayga follow dhahdid haddaad horey noola joogteen waad ku mahadsan tahay siina share garee si saaxiibo wanaagsan u gaaro sida adigoo kale okay wax badan ayaa horyaalka dalka Ingiriiska markuu bilaabanayay waxa la lahaa talow ma Chelsea ayaa qaadi doonta ma Man City ayaa qaadi doonta ma Arsenal baa qaadi doonta ma Tottenham ayaa qaadi doonta ma Liverpool isku soo duuduub maalinta Axadda oo taariikhda ku beeganta 22 May xabnaga ma xigto wad baa naga xigto horyaalka dalka Ingiriiska waa la go'aamin doonaa koox ayaa waxa laga saari doonaa farta naga qaba la dhihi doonaa kooxda noqon doonta ma Manchester City ay noqon doonta mise kooxda kubadda cagta Liverpool ay noqon doonta walla kamal daari waa jira Axadda waxa la go'aamin doonaa horyaalka dalka Ingiriiska kooxda qaadi leh wax badan ayaa waxa la heen Man United Ronaldo ay keensatay oo United halka dhig muxuu horyaalka Arsenal ayaa qaadi doonta Tottenham ayaa qaadi doonta Chelsea Champions League soo qaaday oo looma dhawaan karo waa balaayo Chelsea Champions League idinku u jeeday daftay bala haddaba labadan kooxood Liverpool iyo Manchester City labadaas midkood ayaa horyaalka qaadi doona talada ku darso 90 dhibcood iyo 89 dhibcood ay kala leeyihiin ajib walla horyaalka dalka Ingiriiska sanadku ku adeegaya ma arag Manchester City waxay ciyaartay 37 kulan kulankeedii 38aad Aston Villa ay Axad la ciyaaraysaa waxayna leedahay 90 dhibcood kooxda Liverpool waxay ciyaartay 37 kulan kulankeedii 38aad Wolves ay la ciyaaraysaa labadaasi mid walba waxay rabtaa gool aanu aragna cid qaadi doonto sanadkan horyaalka dalka Ingiriiska marka laga soo tago kooxda qaadi doonto horyaalka Premier League sanadkan waxaa jira kulan kale oo xiiso leh oo indhaha caalamka isha ku hayaan kuwaas maxay u dagaalamayaan mataqaana kuwaasi waxay u dagaalamayaan Champions League su'aalistiisa waa kuwe waa Tottenham iyo Arsenal Tottenham habeen dhaweed waa iswardaamisay hal iyo eber ay ku badisay Arsenal qolo Arab iibsatay oo Newcastle la yiraahdo intay qabatay oo qol ku xiratay si u garaacis naqaska inta ku dhijisay bi labi eber uga badisay walla Arsenal Newcastle baa ku wareersan tahay in adeeray champion waxba ka keenay Messi ma meesha iska joogtay ma iska European League Manchester United waa aragtaa European League oo dagaalameysa isku soo duub Tottenham iyo Arsenal waxay rabaan inay sanadkan midkood soo aado Champions League waxaana rajada 90% iyo jajab fiican kooxda Tottenham marka aan ka soo tagno horyaalka dalka Ingiriiska horyaal kale oo waxa jira xiisihiisa iyo xamaasadiisa iyo bunbuunintiisa wato horyaalka dalka Talyaaniga hadaa ogeed Juventus baa qaadaysa Juventus baa qaaday way labeysatay way saddexaysatay way afreysatay haddaba sanadkan ma aha hatta sanadka hore ma ahayn sanadka hore saa ogeed Inter Milan ayaa qaaday sanadkaana Inter Milan waa lagu qabsaday niman aan la filin oo AC Milan la dhaho oo qawaare wadato marka qawaare ku dhahay waxay wadataa Zlatan Ibrahimovic iyo Oliver Giroud iyo niman waxay wadataa qabiiro oo soo daalay oo retire ah oo nasiino u soo aaday horyaalka Talyaaniga waxyaalaha cajiib kale AC Milan 37 kulan ayaa ciyaartay kulan ayaa u dhiman AC Milan waxay leedahay 83 dhibcood waxay ciyaartay 37 kulan Axad ayaa waxay la ciyaaraysaa Sassuolo AC Milan waxa laga rabaa badin Inter Milan waxay leedahay 81 dhibcood waxay la ciyaaraysaa Sampdoria horyaalka dalka Talyaaniga sanadkan inama caadi ma AC Milan mar hore waxa la leeyahay way u qalantay inay horyaalka sanadkan qaado waayo qaabka ay u ciyaarisay sida isku soo maareysay kulmo adag u maareeyay u guuleystay Milan waxa la leeyahay war Milan waa daashay mar hore ugu dambeysay horyaalka dalka Talyaaniga ee sanadkan loo cimaamado horyaalka dalka Talyaaniga wakaas waxa ka jirta marxalad adag baa ka jirta yaa qaadi doona ma Inter Milan ayaa ku ceshan doonta ma AC Milan ayaa qaadi doonto taageera AC Milan waxay leeyihiin qaasatan kuwa Soomaalida sanadkan AC Milan ayada ugu xaq badan
cid ka xigta male. Inter Milan sanadka hore ayaa qaadeen, sanadkan Milanaha loo daayo ayadana waa taas horyaalka dalka Talyaaniga xaalkiisa halkaas oo uu marayaa. Daawada adiga ayaan ku daayay bal falanqay sanadkan horyaalka dalka Ingiriiska ma Liverpool baa qaadi doonto mise waxa qaadi doonto Manchester City. Mana marna horyaalka dalka Talyaaniga kooxda kubadda cagta Inter Milan miyaa qaadi doonto mise AC Milan. ogowna afartaas kooxood aan kasoo sheekeeyay wax asaas u weyn oo dhibcaha uma dhaxeeyo. Manchester City waxay leedahay 90 dhibcood halka kooxda kubadda cagta Liverpool ay leedahay 89 dhibcood. waxayna la kala ciyaarayaan kooxaha ah Man City oo la ciyaari doonto Aston Villa iyo kooxda Liverpool oo la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta Wolves. maalinimada Axad ah aanu aragno cidda qaadi doonto horyaalka dalka Ingiriiska. Talyaanigana sida aan hore idinkugu sheegay AC Milan oo leh 83 dhibcood iyo Inter Milan oo leh 81 dhibcood waxayna la kala ciyaarayaan. haddii aan ku hormaro kooxda kubadda cagta Milan waxay la ciyaari doontaa kooxda Sassuolo xagga kooxda kubadda cagta Inter Milan ay la ciyaari doonto kooxda Sampdoria. adiga ayaan ku daayay daawade kooxda horyaalka dalka Ingiriiska ku guuleysan doonta qaybta commentiga ku soo qor. waxaad oran doontaa Liverpool ayaa qaadayso, waxaad oran doontaa kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa qaadi doonto. isla horyaalka dalka Talyaaniga kooxda qaadi doonta ayada naftirkeeda waxa ka codsanayna inaad nala wadaagtid bal sida u saadaalisid inay noqotay in kale ayaanu arki doonaa. tan iyo kaluntadeena dambe anigoo hanfada waxaan leeyahay salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.